siinbari cuntadan lama joogteeyo haddii la joogteeyana waxaa dhacaya cunugaaga miisaankiisa aad u weyn inuu macnaha u kordho miisaanka tirada badanna uma fiicna ilmaha laakiin asbuucii adi 2 mar oo kale hadaa u sameeyid kafeey waaye cunuga hadduu marka uu kaayahay caata saa'id ah waxaa sameey ilaa uu kasoo kabsanayo mar walba u sameynaysaa insha Allah waxaa ka sameeyay la socda السلام عليكم ورحمة intana الله daan soo وبركاته gaarsiiyay u asxaabtaadan u share garay qaybta commentiga fikradaada waa hoos insha Allah aan guda galnay fiidiyoga cashirkan wuxuu quseeyaa gabdho badan oo i weydiiyay yiraahdeen waxaan u baahanahay ilmaha 6 bilood jiro cuntadii la siilahay oo ku habooneed badanaa gabdhaha ila soo xiriir waa gabdho ka cabanayo miisaan xumo ilmahooda cunugaaga marka asbuuc gudihiisa ayuu isku bedelayaa haddii aad u isticmaashid qaabkan aan kuu sheegayo horta waxa la isticmaalayo maxay yihiin waa su'aale waa xabad tufaax ah tufaaxa wali waxaa fiican midka guduudka ah ama jaalaha ah yelowga kaas waa soo qaadane waad dhaqaysaa diirka ka fiiqe waa jarjare 3 xabo timira soo qabanay lafta ka bixinay waa dhaqay waa ku daree intaas dabka isla saare markaad isla saartid markuu bislaado biyo yar horta ku daree dabka saare markay bislaadaan waa ka dajinay in yar sugi ilaa xoogaa yar uu ka qaboobayo lowski oo lowska almoonka waxaa la sameeyaa biyo la dhigaa habeenkii si uu dubka kaaga fiiqmo lowskaas oo 3 xabo ah soo qaadanay tufaax iyo timirta oo diyaarka ku ahayd ayaa ku dhex darsanay waa isku shiidanay makiinada cabitaanka ama qalaadada qof walba wuxuu u garanayo ayaa lagu shiidaa intaas markaa sameysid waxaa sameynaysaa markaa si fiican isu shiidid waxaa ugu shubaysaa ama saxan ama baaquli wixii aad haysatid marka ilmaha waa 2 kuba wixii la siiyaa caadi oo cuni karo oo afka hadii loo geliyo afka ku qaadanayo iyo kuwa aan bayeeleenin waxaan tala kugu siinayaa marka gabaray waxa soo qaadanaysaa midka cabitaanka lagu miiro shabaq cabitaanka lagu miira soo qabanaysaa ama shaandhada waxa u gelinaysid waad ku miiraysaa kabacdi waxaad sameynaysaa masaasada ayaa ugu shubaysaa habeenkii iyo subaxii ayaadna siinaysaa waad ka soo ducey doontaa miisaanka alaabtan aad u weyn ay u kordhisaa cunugaaga waxa ku soo harta di miisaankiisa meel uu yahay asbuuci 2 mar uga dhig sababtoo ah miisaanka faraha badan ma qurux badno ilmaha caafimaad ahaan ugu wanaagsano cunugaaga miisaankiisa waa normal inuu noqdo muhiimada waxa waaye cunugan koriimo ma ku socotaa si qurux badan ma u koraa laakiin faad tira badan ilmaha dasaartid dhibaato badan ay ka qaadayaan hooyooyin badan oo waxa jiraan ilmaha aad u weyn cuntada uga xiran tacbaanka ah da'diisa aan u qalmin kuwaas aad u anfacaya fiidiyogan mar walba waxa ku dadaashaa cunugaaga waxyaabaha waxtarka u leh gabdho waa mahadsantiin dhamaantiina soo dhawaada channelkan hadaa ku cusub tahay please subscribe saar asxaabtaadana la wadaag waxyaabo badan ayaa halkan ka helaysaa oo caruurta hooyada xaamilada ah talooyinka waxyaabahaas oo dhan ku jiraan marka si aad wax walba ula socotid subscribe saaro gambaleelka furo markaas ka bacdi si aad u heshid xogto dhameystiran cashirkan insha Allah biidnillah waxaan rajeynayaa dad badan inuu intifaaco haddii maanta aan ugu cusub tahane waan ku soo dhaweynaynaa waxaa ku leenahay gacmo furan ku soo dhawow cashirkan aad ku anfacayaa adiga loogu talagala daawanayo si wacan uga boga haddii aad u baahneen like saar asxaabtaadan la share garay waxaa jiraan gabdho badan oo u baahan oo aad u weyn muxtaaj ugu ah oo rabaan in ay helaan caawinaad gabdhaha quruxda badan oo meeshan ku jiro dhowr su'aal ay soo weydiiseen weliba ilmaha yaryarka ah oo umusha ku jiraan ilaa 6 bilood oo ugu horeyso ku jiro ilmahaas marka ilmaha waxay isaga badan yihiin badanaa kuwa macnaha aad u diida caanaha waxyaabo waxa keena marka caanaha inay diidaan ilmaha sabab u noqdo sida in naaska qaabka loo qabanayo ama hadii kale cunuga caano ku filan naaska uu ka heleenin ama xumad ay caloosha ka jirto oo calool majiir iyo infection calooleed caloosh ay ka heeso markaasna cunuga aad isugu dhib mutaneedin oo wuxuu noqonayaa asagana uu tacbaanaya adigana waxa isleedahay intee laga heestaa waxa marka kugu haboon aad sameey karto waxay tahay
dhakhtarka u geey cunuga si uu kaaga caawiyo wixii uu u baahan yahay. Daawo yar oo waxaa jirta marmarka qaar ilmihii intaasoo bilood rafaad iyo dhib dareemayay, daawo yar ama hal goojo ama hal sharoobo yar oo loo soo qoro oo wax badan u tarto u shaqeyso ayaa macquul noqonayso. marka inta cunugaaga guriga ku hayso lahayd biliis dhakhtar u geey. Soomaali hadaan nahay waxa aan macnaha aad ugu badanna wax waa ilmaha guriga lagu hayaa tacbaan markay noqdaan ayaa waxa la sameeyaa markaas ka bacdi isbitaal iyo wax la raadiyaa loo orordaa. marka cunugaaga dhakhtar geeso wax yar hadaa ku aragtid oo waxaas wax normal ah aysan ahayn, marka cunugaaga intuu si koriimadiisa ka daciifin waxaad sameeydaa dhakhtar cunugaaga u sameyso geey dhakhtarka wax yar uu daaweey karo hadhowti wax weyn oo isku bedelin. intaasna tala ay iga tahay sababtoo ah waxa arkay gabdho badan oo ilmaha guriga isaga haysto oo markay tacbaan ilmihii ka noqdaan markaas ka bacda ordaan isku dayaan markaas kadib in macnaha xal ay raadiyaan. wax walba jirada waxaa ka wanaagsan ka hortaga marka hore inaad sameedid. hadii cunugaaga waxyaabaha yaryar oo normalka ah macnaha uu kuugu shaqeey waaye ama uu ku caafimaadi waaye ilaaha caafimaadka baxshee waxaad sameeydaa dhakhtarkiisa u geey. gabdho horta aad u mahadsantihiin inta igu soo biirtan waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin. inta kaleeto oo igu soo biiri doonta waxaan leeyahay soo dhawaada dhamaantiina fiidiyogan meel sare gaarsiiya walaalihiina kaleeto ayaa u baahan ku caawiya insha Allah. qof walba oo halkan iga daawanayana muraadkiisa Allah u sahlo. qof walba xanuunsan oo ilmo ka xanuunsan ama hadii kaleeto siyaabo kale oo xanuunsan